السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا برنامج كيني محي كولتهاي أهو سيدة ديكا. ياسر الحزيمي ونين عربة وعانو برامج فربدن يوتيوب ككله markuu noloshiisa uu ka sheekay ayaa wuxuu ku leeyay 15 sanadood ka hor cajalad ayaan sameeyay cajaladaas dadkii aad bay uga heleen oo way faaftay oo dad farabadan baa dhageystay taas baa ugu wacnayd inaan noqdo qof shuhurad leh ama qof caan oo la garanayo oo meel kasta loogu yeero oo meel kasta la dalbado si uga hadlo si kastoo culimadu markasta idhaahaan ha dalbanin inaad caan noqotid wuxuu ku leeyay markaan caan noqday ee meel kasta layga yeedhay ee lay bartay maalin maalmaha ka mid ayaa nin qariib oo aanan garanayn ayaa telefoonkayga soo garaacay markaasaa wuxuu igu idhi yaasir idhagayso waxaad ahaataa sida diika markaasaa inta naxay ayaa wan weydiiyey waxaan ku idhi oo wuxuu diiku sameeyaa ninkii aanan garanayn ayaa wuxuu igu jawaabay wuxuu igu idhi diiku wuu eedaamaa ahaw sida diika hadaf nolosha yeelo diika haddaa la dhigo kharaabad ama xashiish dhexdiisa subaxda wuu eedaamayaa haddaad diig aad keentid oo deerka guriga aad degtid subaxda wuu eedaamayaa haddaad diigka aad qaadid oo buur aad dul dhigtid buurta dusheeda wuu ka eedaamayaa haddaad qasar qurux badan dhigtid wuu eedaamayaa haddaad dooni aad saartid badda dhexdeeda subaxda wuu eedaamayaa haddaad sandiqad aad dhex dhigtid wuu eedaamayaa sababtu waxa weeyaan taas weeyaan hadafkiisu nolosha hadhowtana wuxuu ku idhi yaasiro oo yaabsan ayaa uu hadli kari waayey wuxuu ku yidhi maxay kale wuxuu ku idhi yaasir idhagayso waxa kula soo hadlaaya janalada telefishinka marka lagula soo hadlo lagu waraysto ha ilaawin inaad eedaantid hudheelada ugu caansan ayaad seminaar aad ka samaynaysaa ha ilaawin inaad eedaantid dawrado iyo workshopyo baa lagugu yeedhaya caan baad noqonaysaa magac baad yeelanaysaa ha ilaawin inaad eedaantid waxaad tegaysaa meelo fara badan oo khayriyo lagugu yeedhayo oo dadka faqiirka ah lagugu odhanayo wax sii ee ha ilaawin inaad eedaantid dad caana oo lacag haysta oo maalqabeena dhex fadhiisanaysa ood ka dhex hadlaysa ha ilaawin markaad dhex joogtid inaad eedaantid ha ilaawin mar kasta sida diika ahow wuxuu ku leeyahay yaasir alxusaymi ayaamo fara badan ayaan gurigayga aan ka dhex bixi kari waayey oo aan ka fakeraya hadalkaa ninkuu igu idhi iyo sababtu waxaan igu idhi iyo hadafka uga jeeday hadalkan uu igu idhi wuxuu ku leeyahay dhowr cisho kabacdi ayaan gartay wuxuu uga jeedaa qof kasta nolosha waa inuu yeesho hadaf gaara waa inaad nolosha yeelatid hadaf aanay isbedelayn oo kuu muuqda oo saxa hadday noloshu isbedesho adigu ha isbedelin hadday dadku isbedelaan hadafkaagu yaanu bedelmanin hadday duruuftu adkaato duruuftun ay bedelmato adigu ha bedelmanin oo hadafkaagu yaanu isbedelin hadafkaagu ha noqdo hadaf qura nolosha oo ha noqdo bismillaahi araxmaani araxiim wacajiltu ilayka rabbii litardaa sadaqa allaahu alcadiim ilaahu adan kuu soo orday oo daraaddaadan u noolahay oo waxaan u noolaanayaa si aan kuu caabudo oo wanaag iyo waxtarna nolosha ku soo kordhiyo maxay idinkana idinla tahay ma noqonaysaan sida diika waa mahadsantiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh